وتهي warbixintaas ayaa daawaneyseen ee ka hadlaysay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo qorsheynaysa soo bandhigtay manhaj waxbarasho ilaa galaaska afraad ah kaas oo muddo burburkii kadib ay dawladda hadda ay rabto in dalka laga hirgeliyo haddaba si arrimahan aan wax badan uga ogaano ayaa waxa studio hadda la jooga barnaamijka wardheere martii noogu ah Xasan Maxamed Cali oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya agaasime wardheere goobjoog TV ku soo dhawow marka hore maasanta marka xigta waxaan rabnaa inaan ka warbixisid waxaad soo bandhigteen manhaj waxbarasho oo tarabtaan in Soomaaliya laga hirgeliyo oo ilaa galaaska afraad muxuu galaaska afraad ugu ekaaday aad u mahadsantahay runtii fursadan waa fursad qaali ah oo runtii aan rabno in ummadda Soomaaliyeed la gaaro lana gaarsiiyo warbixinta ku saabsan manhajkan marka hore shalay waxaan soo bandhignay waxay ahayn waa textbooks ama waxay ahayn buugaagta wax laga barto ardada buugaagta waxa ka horeysay runtii waxa ka horeysay manhaj sidiisaba manhaj ma aha textbook ma aha buugga kaliya wax laga dhigto ma aha Soomaalida markaad weydiiso waxay ku leeyihiin su'aalaha badan oo noo soo noqnoqdo waxay ahayn manhajka hal la mideeyo Soomaaliya waxaa jira manhaj fara badan dhowr manhaj jirto meel laga kala keenay runtii manhaj ma ahayn waxaas waxay ahaayeen buugaag wax laga dhigto laga soo qaaday ama Kenya laga keenay ama laga keenay Imaaraadka ama qof kasta buuggii uu helay ayuu keensaday maadaama wadanka burbur uu ku dhacay hadba ururkii waxbarashada ay waxbuu iskuul walba iyo macallin walba buug uu helay ayuu isticmaali jiray kaas marka manhaj ma aha kaas waa textbook oo wax laga dhigto manhaj waa wax qaabaysan oo ka tarjumayo ujeedada waxbarashada dalka waa fikir badan oo qaabaysan oo ka tarjumaya qiyamka wadankaas ama qiyamka dadkaas ay leeyihiin waa wuxuu ka kooban yahay marka waxyaabo fara badan oo ka kooban yahay textbook waa qayb kamid ah ama buugga wax laga barto waa qayb kamid ah manhajka markii ugu horeysay waxaan sameynay qaab dhismeed oo aan bishii May 9keedii 2017kii la soo bandhigay waxaan soo bandhignay qaab dhismeedkaas waxa waaye sidee ayay noqonaysaa waxbarashada dalka maxaa lagu saleynayaa waxyaabaha ugu waaweyn oo lagu saleeyo wuxuu ahaa marka annaga waxaan rabnaa arday Soomaali ah muslim ah inuu noqdo yani qiyamka uu ku dhisan yahay waa qiyam islaam waa qiyam Soomaalinimo ah waa qiyam nabadkooda noolaansho ah qiyam ah in uu maaragtay ummadda يعني وفلسفة كليدهم ومنهج صومالي فلسفة لقلي هاي صومالي وقرت قاب اسمات كاس وحكى لو كل اسنا قاب اسمات كا وحوها outcome based وحال يراد مردل ما عنقان وحال مركي اي دماته وحال عنق اللي يرادو والعنقان محو قبن كرا maxaa ka soo baxay xisaab aad u dhigtay okay xisaabtii cunugan muxuu ka faa'iido maxaa ka soo baxay xisaabtii 12 sano wax soo dhignay cunugan maxaa ka soo baxay يعني مير دل أيوك سليسيا كي هو رواج هو وحوها و subject based وحوها مير دل كمركا إلى وقتيسين سوما أضربتان مير دل وقتيسيا إلى قرما أقول لك شيء وحوك سليسيا مير دلكو ما دول بوحيلان هاي سنة كوات عنق مركو فصل كوات لما أما بعد حساب أما بعد أفصومالك محل سوى عنق إنه يقانه محل سوى عنق نوعين وأيون قولي أقرن معنا أو قولي أقرن منهج كجودنا محل ربع منهج كوسكابايا Soomaaliga sida loogu talagalay diyaarinta manhajka loogu talagalay marka qaab dhismeedkan waxa diyaarsan ilaa fasalka 12aad oo dugsiga sare ah uu qaab dhismeedkaas uu diyaarsan yahay oo bishii May 2017kii ayaa la ansixiyay waxa golaha wasiirada waa la geeyay waa la ansixiyay waa qaab dhismeedka baarlamaanka wala kulimeel baarlamaanka ma u baahna waa golaha wasiirada ayaa soo ansixiyay uma baahna baarlamaanka waxa u baahan sharciga u baahan sharcigan uu yaala manhajkan waxa laga soo dhiraandiriyay siyaasadda waxbarashada dalka iyo sharciga waxbarashada dalka oo qabyo qoraalka ah ayaa laga soo dhiraandiriyay marka wuxuu ka hadlaa ujeedada Soomaaliya hadaan nahay maxaan ka rabnaa waxbarashada ardayda soo baxaysa arday noocay ahaan rabnaa inay maaragtay ay soo baxaan fasalka 12 markay waxyaabaha hadda socdo waa waxa loo dhigayaa buug ka yimid juqraafi waxa loo dhigayaa oo Kenya ka yimid ayaa loo dhigaa juqraafiga Kenya wuxuu ku saleysan yahay mabaadi'da Kenya ku saleysan yahay cunuga Kenyaanka ah waxa laga rabo markuu soo noqdo ayaa ku jirto waxa ku jirto dugsiga sare juqraafiga kale waxa ku jirto magaalada Kismaayo kale inay kamid tahay wadanka Kenya cunuga Soomaaliga marka loo dhigayo buugaas juqraafiga oo Kenya laga keenay waxa uu baranayaa in Kismaayo ka tirsan tahay Kenya
inkastoo macalinka uusan saas inuu ugu dhigan isu tagan noqon karin dhibka ugu weyn oo jiro waxa waaye buuggii raacay buuggina saasaan ku qoran marka waxyaabaha aan rabno waxay tahay cunuga Soomaaliya inuu barto wadankiisa inuu barto dhaqankiisa inuu barto diintiisa inuu barto waxyaabaha agabka dhaqaalaha wadanka laga helo juqraafi ahaan wuxuu yahay yani marka wuxuu ku salaysan yahay marka taas marka wadaniyad iyo dalka iyo muhiimad in Soomaaliya ahaadaan marka lagu saleeyo marka laga yimaado laakiin meel laga soo qaatay manhajka marka sameeynayeen ilaa meel ibrahimiin ka bilaabeen wayna kala duwan yihiin thaqaafadaha ama dhaqanka waxbarasho dunida marka idinka tarjumaad hadii marka aad sameeyeen oo kale yaa manhajkan basic oo ka dhigtay marka laga yimaado qaybtan soo qofka Soomaaliya waxa ardayga Soomaaliya waxa kartaan manhajkan runtii manhajkiisa ma la minguuriyo manhaj lama minguuriyo buugta waa la minguuriyaa laakiin buugta laftirkeeda ma aan soo minguurin buugta waxaan aad ugu dadaalnay inaan la minguurinin oo cid walba oo copy keentaba waa ku celinay waxa jira guddi ku celinay waxa la rabaa in hal abuur tusaalaha ardayga la barayo ama xisaabta ama sayniska ah tusaale waxa la rabaa inuu noqdo oo relevant ah tusaale la xiriira bay'ada wadanka tusaale la xiriira waxa wadanka ku salaysan yahay marka waa la alifay buugtan reference waa la isticmaalaa adduunka oo buug kale waa la fiiriyaa si u qoran buugta hore Soomaaliya manhajkii hore Soomaaliya wuu yaala waa la soo qaaday reference ahaan oo isticmaalaynay oo buugta hore Soomaaliya oo waagi dawladda ay jirtay inkastoo xilli hore ay taas laakiin falsafad ahaan iyo maaragtay waxyaabaha uu ku saleysnaa inta wax dhaqaalaha wadanka ku saleysnaa waxyaabahaas laga soo qaatay laakiin waxa aad ugu dadaal inuu buugga noqon buugta la qorayo inaysan noqonin buug meel laga soo koobiyay oo la soo paste gareeyay macallimiintan waan u sheegnay muddo sanad ah ay socotay qoraalka buugtan waxa jiro kale guddi qor buugta oo maado walba ilaa 3-4 qof ah waxa jiro guddi kale oo supervision ah oo kormeeraya shaqadooda oo markay buugga keenaan dib u akhrinaya buug kasta waxa laga fiirinayaa habka loo qorayo ayaa la fiirinayaa waxa la qorayo ardaygani ma la tahay da'diisa ma tahay ma fahmi karaa waxaan luqadda saxmiya wax uu ardayga fahmi kara miya wax bi'ada miya wax wadanka maslaxad u lamiya dhaqanka ma kor imaana waxyaabaha hoos laga fiirinayo aad ama tahay marka inta hadda burburka lagu jiray waxa laga yaabaa guddiga dadka ku jiray in iyagu naftikooda ay thaqaaf ahaan ama dhaqan ahaan ay kala duwan yihiin oo waxbarashada waayihii dambe qofba waxba luqado wax ku baranay marka taas naftigeeda isbarbardhigeeda ama balancegeeda ma la fiiriyo si uusan dhinac ugu badan waxa aad loogu dadaalay markii dadkii qoray laftirkooda waa dad CV-gooda inta la soo dalbadeen interview laga qaaday la fiiriyay background-kooda iyo maaragtay waxbarashadoodii aad loo fiiriyay oo dad laga soo xulay oo waliba aan lagu deyn xulkaasna oo la kormeeray oo la ogaa waxyaabihii qoraan oo markay soo qoraan laga fiirinay marka runtii buuggan waxa dhigi karnaa oo hadda soo baxay oo waa qayb kamid ah manhajkii markii qaab dhismeedka la sameeyay waxa la sameeyay syllabus ama muqarrar la sameeyay muqarrarkaas oo qayb ka ah muqarrarka marka la sameeyay waxa la sameeyay wax kale oo asal la yiraahdo scope sequence maadada laftirkeeda sidee deeply oo hoos loo galaya مثلا حساب لو دغايا فصل كواد حسابتاس لو دغي مثلا waxa loo dhigaya algebra jabtar kasta oo wixii jabtar kasta how deep uu galaya hadda fasalka labaad markuu gaaro uu soconaa curriculumka laftirkiisa ama buugtan waxay u qoran tahay curriculumka waa noocyo badan yahay nooc la yiraahdo spiral waa uu wareegaya wuxuu u wareegaya مثلا isku daridoo kale ama isku dhufashada way soo noqonaysaa fasalka koowaad fasalka labaad fataad laakiin waxay sii noqonaysaa way sii adkaanaysaa fahamkan uu sii weynaana ardayga marka maadooyinka oo dhan saasay u dhismayaan waxa kale oo u dhisan yahay manhajkan uu isku dhex jiraa textbook yani cunuga xisaabta baranayo waxa laga yaabaa inuu juqraafina barto waxa laga yaabaa taariikh uu baranayo wuxuu baranayo luqaduu baranayo maxaa yeelay xisaabta waxa la weydiinaya mas'alooyin la weydiinaya inuu ka shaqeeyo waxay ku abuuraysaa fikir mas'aladaas waxay ku saleysnaanaysaa مثلا cabirka beerta oo kale ayaa tusaalahan loo isticmaalaa wuxuu baranayaa dhulkii uu baranayaa wuxuu baranayaa juqraafiga oo dhulkii beerihii uu baranayaa khayraadka yani waa maadooyinka way isgalayaan way isku noqnoqonayaan waa cross cut marka hadda ilaa wasaaraddu waxay soo badhigtay ilaa galaaska afraad adina waxa ii sheegtay in manhaj ahaan ilaa waxa u diyaarsan marka buugta inta kale fasalada xiga iyagan goorma diyaar noqonaya qaab dhismeedka waxa diyaarsan ilaa ay fasalka 12aad haduu ilaahay raado waa waxaan waxa loo sameeyaa stage waxa la sameeyay hadda qaybtii ugu dhib badneed oo ahayd fasalka koowaad ilaa fasalka afraad dadku waxay u haystaan badana inuu ugu sahlan yahay koowaad iyo afraad laakiin kuwa ugu dhib maxay waa inaad aliftaa hal cunug yar oo 6 jir ah ayaad rabtaa inaad wax fahamsiisid oo wax u dhigtid waa inaad
soo qaadataa dhagxaantii markaa xisaabta u dhigaysa waa inaa farti aad usoo bilowdaa marka meelaha ugu adkaa waaye runta alxamdulilah waan kasoo gudubnay ilaa ay fasalka afraad way dhammaadeen hadda fasalka afraad 1 ilaa 4 dugsiga hoose hadduu ilaah yiraahdo sanad dugsiyeedkan waxaa lagu bilaabaya dugsiyada dhan waa lagu bilaabaya 5aad ilaa iyo 8aadna hadda waxaa socda haddana diyaarintoodii socoto waxaan rajaynaynaa ilaa bisha December 5aad ilaa 8aad dugsiga dhexe inay dhammaato sanadka January marka la bilaabana ilaa iyo Mayda yani 4 sano intay socotay in 4 kale sano la sii diyaariyo saas miyaa ula jeedaa way ku dhex soconaysaa maxaa la December ilaa iyo December sanad dugsiyeed kale inta la gaarin inay buwaagta dugsiga dhexe diyaar noqoto dugsiga sarena January ilaa iyo May ama June inuu dhamaado asagana sanadka dambe waqtigan inuu dugsi sare dhamaado oo manhajkii buwaagta laga dhigi lahaa ay diyaar noqdaan 2019 inay diyaar noqdaan oo 2019 in uu ahaado sanad manhajkii Soomaali iyo textbookii ama buwaagtii wax laga baranayo inuu diyaar noqdo buug wax la baranayo waxa la socda laftirkiisa buugii macalinka la socdo waan ognahay maanta macallimiinteena waxay u baahan yihiin kaalmo u baahan yihiin tayada macallimiinta runtii waxay u baahan tahay in aad kor loo qaado naftigeeda waxa la socdo marka buug oo la yiraahdo buugga macalinka suu u dhigi lahaa casharkan suu u dhigi lahaa waxyaabo arday weydiin lahaa xoogaan uu ka horeeyo kaasna wuu ku jiraa marka 4 buug hadda diyaar ka 4 subject oo diyaar macalinkan uu la socdaa kan macalinkan uu la socdaa marka inta iskuulada iyo ama gobolada imtixaanaadkiina uu ku ekaan buu ku bilaaban doonaa Soomaa waddanka dhan uu ku bilaabanaya intii ma aragtay hadda waxaan isla joognay April bishii April maamul goboleedyada wasiirada waxbarashada maamul goboleedyada waxaan ku kulanay Dhuusamareeb oo aan uga hadlaynay waxyaabahan waxaana go'aankii ama warmurtiyeedkii ka soo baxay waxa la isla qaatay in laga hirgeliyo manhajkan waddanka intii la gaari karo oo nabad ah in la gaarsiiyo hadda Puntland baa imtixaanaadkiina qayb ka ahayn wasaaradda iyadoo manhajkan way qaadanaysaa miyaa waxaan rajaynaynaa inay ma aragtay ay manhajkan qaadato waxay aad ay uga shaqaynaysaa in manhaj ahaan qaab dhismeedku waa isku mid qaab dhismeed ayaa yaala halkaas qaab dhismeedna Somaliland qaab dhismeedna Puntland iyo qaab dhismeedku waa isku mid ardayga jooga Garowe ama ardayga jooga Boosaaso ujeedada laga leeyahay waxa waaye waa arday Soomaali ah oo muslim inuu soo baxo kan Hargeysa jooga waa arday Soomaali arday muslim saas la rabaa laakiin iyagoo idin la qaateen inay manhajkan Soomaaliland hadda iyadu hawsheedu waa hawl kale hadda uma maleynayo oo iska caddahay inaysan manhajkan hadda Puntlandna waxaan rajaynayaa inay qaadato iyadana waxaan rajaynayaa inay qaadato maadaama baalkan uusan ahayn wax ka hor imaanayo siyaasadda inuu ka hor imaanayo iyo dhaqanka iyo diinta waa gartay agaas ma aad u maasan tahay su'aasha kale waxay tahay af Soomaaliga ku qoran yahay marka doodanay lama arkin wasaaradda dowlad badan ka sameynaysa in manhajka luqadda la qaadanayo kale hadda waxa ay sheegtay ilaa dugsi sare in af Soomaali uu noqonayo mise ilaa dugsi dhexe noqonayo marka secondary marka waxa luqad kale noqonayo mise waa luqadda in noqon lahayd waa go'aamisan saan mar hore aan sheegay manhajkan wuxuu ku salaysan yahay laga soo dhiraandhiriyay siyaasadda waddanka siyaasadda waxbarashada qaranka waxaa ku qoran in dugsiga hoose dhexe lagu baranayo af Soomaali dugsiga sarena af Ingiriis ama af Carabi ama af Soomaali in option la siiyo wali aan cadeyn way caddahay laakiin luqaddu rabo qofku qaadanaya ama Ingiriis qaadanaya intaas way wada jiri karaan ama Ingiriis ama Carabi ama Soomaali ku qaadanaya laakiin buugu waa isku mid luqaddu buu kala duwan yahay maahe topiga iyo wixii laga hadlayo luqadda rabo qofku qaadanaya ta kale luqadda Soomaaliga waxaan rabaa inaan aad u iftiimiyo luqadda Soomaaliga yani intii aan la kulanay oo aad waa laga dooday markii la sameeyay siyaasadda qaranka waa laga dooday manhajka laftirkiisa waa laga dooday yani waxa oo yani la isku raacay waxay in af Soomaali laga dhigo waxa shaki la geliyay oo dood kadib dugsiga sare laftirkiisa in Soomaali laga dhigo laakiin xoogaa dooda xoogaa waxay u badatay hal yar maadaama ardayga jaamacad uu sii galayo ha laga dhigo ma aragtay ay suurtagalta in jaamacadaha wadamo kale wax ka helo ha laga dhigaay laakiin in luqadda Soomaaliga lagu dhigo waxa waa wax la isku raacay oo adduunkana hadda theory-ga ama waxyaabaha hadda socdo ama cilmi baarisada socdo waa cunuga wuxuu wax ku baran karaa oo ugu fiican luqadiisa hooyo luqadda guriga looga hadlo luqadaas uu ku baran karaa marka taasna wax oo su'aal ah kama jirto waxaan rabnaa runtii af Soomaaliga in la xoojiyo sida kaliya uu aad loogu xoojin karana waa iskuulada lagu dhigaa buugta in lagu qoraa hadda waxaa qorshaysan marka buugga la dhameystiro xal manhajku
wuxuu kooban yahay qaab dhismeedkii kadib muqararkii sida dib uu galay ka bacdi buuggii wax laga baranayay buuggii macalinka kadib waxaa jiro agab kale oo taageeraya مثلا wuxuu u baahan yahay ardayga Soomaaliga markuu uu buugga Soomaaliga baranayo buugaag kale oo sheekooyin uu akhristo oo dhisay luqadiisa dhisay wuxuu u baahan yahay buugaag kale oo xisaab oo maaragtay oo si kale loo dhigay waxyaabo badan oo fududeynaya marka agabkaas bal horta textbookii markaan dhameeyno waxaan rabnaa kadib agabkaas hadana marka saddexda option ama fursad uu haysto ardayga dugsiga dhex ka baxa waa Carabi English iyo Soomaali miya saddexda Soomaali ku jira labada luqad kan Soomaali waa luqadaas waa marka qofkii ardayga marka dugsi dhexe Soomaali ku soo barto kale markuu qeybaha English iyo Carabiga aaday soo caqabad soo kala ma kulmaa caqabadaas waan ka fikirnay dugsiga af Soomaaliga marka hadda la dhigayo maadooyinka oo dhan luqadda Carabiga waxa lagu bilaabaya fasalka koowaad maada ahaan lagu dhigaya maada ahaan lagu dhigaya fasalka koowaad tarbiya islaamiyana waxa lagu dhigaya Carabiga lagu dhigaya soo marka wuxuu haystaa laba maado oo Carabiga ka xoojinayso ta kale cunuga intaan fasalka lixaad lagu soo bilaabin wuxuu qaataa dugsi quraan uu soo dhigtaa dugsi quraan kale waxa laga yaabaa sidii hore u dhacdo kale in maadooyinkaas oo kale maadaama aysan ardaydu uusan u arkeenin in muhiim ahayn oo inuu fududeysto maadaama secondary ama af Soomaali uu ku dhigan karo oo ka horeeyo kale mise waxa jira qaab ah in maadooyinkaas muhiimad gaar ah oo siiyaan oo ardayga uusan fududeysan qaab waxaa jiro hadda oo ardayga inuu fududeysan koow tan kale qaabka loo dhigayo laftarkeeda habka loo dhigayo waxaan rabnaa hab casri ah oo ah waxaa la yiraahdaa nidaamkan cusub wax loo dhigayo in ardaygii uu noqdo xuduntii waxbarashada meesha awal macalinka intuu soo istaago uu wax ku aqrin jiray ardayga uu inuu fahmay in kale oo kadibna ardayga intuu soo xifdiyo uu dib ugu soo celiyo waxaan ka dhignay hadda nidaamka oo manhajka uu sameysay waa nidaam ardayga iyo xudunta yahay shaqada inteeda badan ardayga qabanay marka ardaygu waa inuu wax qoraa waa inuu wax soo diyaariya uu ku qasban yahay marka inuu luqadii ku practice gareeyo oo luqadii uu si fiican maxay waa inuu soo istaaga presentation waa inuu sameeyaa waa inuu dadkii la hadlaa waa inuu yani habka loo dhigo ayaa ka duwan Carabiga kaliya maaha Ingiriiska laakiin Ingiriiska waxaa lagu bilaabayaa fasalka saddexaad ilaa fasalka sideed oo dhiganaya maadada Ingiriiska laakiin maadada Carabiga ah wuxuu bilaabayaa fasalka koowaad labada fasal kale in Ingiriiska lagu bilaabo maxaa caqabado ku jira caqabadaha ku jira waxa waaye waa waxay u keenaysaa cunuga markuu yar yahay xoogaa waxa imaanaysa confusion waa imaanaya cunugii oo yar oo fasalka koowaad ah markii Carabi iyo Ingiriis iyo af Soomaali saddexdooda la isugu dhigo xoogaa waxa la isleeyahay armuu maaragtay oo la isla qaadi waa awood ahaan luqadihii inkastoo ciyaalku ama maskaxda bini'aadamku ay aad maaragtay ay capacity u sareyso haddana bal inuu Carabiga iyo af Soomaaliga si fiican ula qabsado maadooyinkii la qabsado kadib fasalka saddexaad asoo Carabigii iyo Soomaaligii la haysto maadooyinkii la qabsado fasalka saddexaad looga bilaabo laakiin habka buugta loo diyaariyay waa ka duwan tahay hababkii hore dad badan qaba in Soomaaliya oo hadda inkastoo af Soomaali wax hore loogu soo bartay in buugta iskuulada lagu dhiganayo iyo manhajka si guud inuu ilaa dugsiga hoose Soomaali noqdo hadiiba Soomaaliga laga maarmi karo inta kadibna luqadaha Ingiriiska waliba dadku xoog ay saaraan Carabiga aan ahayn ama Carabiga ay ku bartaan maadaama eray bixinada Soomaaliya aad ugu yar yahay duniduna ay horumartay teknolojiyada la horumaray dalkuna de jaamacada Soomaali lagu bartaan oo lahayn Soomaali badan ay waxbarashada banaanka ku aad kuwaas maxaa kaga jawaabaysaa jawaab sahlan waxay tahay luqad waxa horumaray dadkiisa haddii anagii Soomaali ahayn aan luqadeena ka cararno aan dhahno Ingiriis wax lagu barnaa Ingiriis la aaday yaa horumarnay luqadii annaga mas'uuliyadeen ay tahay luqadeena waa annaga inaan horumarino annagina kama carari karno luqadda eray bixinta dugsiga sare aniga af Soomaaliya ku soo dhigtay ilaa dugsiga sare af Soomaaliya uga baxay waa karta jaamacadda Ingiriis aan ku qaatay dad baa dugsi sare uga soo baxay jaamacadda Talyaaniga ku qaateen wixii gahayr gali jiray laakiin dhibaatooyin kala kulmeen oo laakiin waa laga baxay oo hadda waxa waaye waa qofna ma jirto kale dadku waxay u baahan inay fahmaan luqadda iyo cilmiga way kala duwan yihiin cilmiga luqadda aragta ku baran kartaa dadka Chinese-ka Afshiineska ku bartaan Ruushka Afraashiga ku jirta ay ku bartaan ummad kasta luqadeeda ku barataa laakiin dawladahaas ayagu soo weyn bilowgooda markii taariikh dib loo fiiriyo Turkiga kale luqadooda wax ku bartaan xilli dhow la bilaabay inta ka horreysay luqado kale wax lagu baranay dalku markuu asaga awoodiisa u arko oo jaamacado luqadaas afkaas dalkaas leeyahay wax lagu baranayo kale waa laga yaabaa in awood u leeyahay wadanka inuu sameeyo laakiin wadan Soomaaliya oo kale xoogaa wuxuu u baahan yahay kabasho badan u baahnaan waa runta laakiin taariikhda Soomaaliya kan bilaabato 90 kan bilaabato taariikhda Soomaaliya waxa la rabaa markii taariikhda laga hadlayo
in maxaa ka horreeyay sagaashanka in la yidhahda sagaashanka waxaa ka horreeyay soomaaliya waxay noqotay wadamada yani literacyga ama maaragtay dadka aqris qoraalka dadka ugu sarreeya noqotay waxa lagu gaaray waqti kooban 1900 af Soomaaliya 72 ka hor ma qorneen 73 ayaa la qoray 73 markii la qoray af Soomaaliya yani 1980kii lodkii dugsi sare ka baxay af Soomaaliya uga baxay marka 73 ilaa 80 markaa fiiriso waa 7 sano gudahooda waay 7 sano gudahooda ayaa dugsi sare looga baxay luqadii oo markaas la qoray yani haddii waxa juhdi la geliyo waa la sameyn karaa mana rabna inaan gadaal u noqono hadda oo waxaan rabnaa waxaan waa soo aragnay Soomaaliya waa ku soo dhigin jirnay dugsi sare waa looga soo baxay يعني هذا واحد نبات وين عبسين ما قبلنا لا أوكي معلمين مركا إيجو هذا معلمين دنيا راه واحد اجتهاد ولي سكول هذا جاعديها دنيا راه اجتهاد سكداف دكسيده هوسية نحن وأيضا لقدوك كلا دوان وحكو بربرته عربي إنجليش ثقة صومالي قوة نفسك وذكون معلمين نفسك وحكني هذا هو إيش كتير بوق معانك كابع أجر معانك كابيد بوق اسمك اللي جيمه وقتي بلابنا يعني وسنة كان صار شكتي سو يد نفت كذا معانك أرضي أيوة وحبرش الله بدو وضر ربان سو من بلابنا يعني وارنتا لبا أرمود بسومالي وباهنتا وحبرش إن حوج لا صاروا ونقول هذا فوكس كأما وديرد وحن صارينه ومعلنك أجبك وح لقى برناي لبا ده سدي لسكو هلو وحوين أيا ودك وحبرش هذا كبدل معي قاسة معلنك وارنتا معلنك قرشها وحكو جرتو كلامك هذا بوجي وعلى قري بوجت قرشها وحكو جرتو إن معلمين لو توبروا منهج كان عصب إنه توبروا وسيد الله بيجي لها منهج إنه توبروا توبر جار إن سي حد أنتوا سكول كحريه إن سي كرميرياش لفت الكود أنت توبر حوج إن سي وهذا مركز سكول كتاب حياة إيه فير لهاي إنه توبر مركز قرشها سود ديارسية إن أنت سيرت لك وقت ويري وصار كونفن إن أنت سلوك توبر ما دام معلم كان أول ما معلها ورجنمه ولنع كان أوليه هاي وحكى إنه وهذا كل عصب واسيدي ومنهج كان عصب ولا قبص لها ولا قبص لها تاسنا وكنت دالنا تكلم معلمين حرمنا إن حوج لصار أنت هذا وزارة دين حكومة دال عصب مركي تمد وزارة وحبرشة وحيابها أهمية ده وحبرشة لسيرة ومعلمين هذا الهيل المعلم تيله هذا الهيل وحبرشة تيله ود كان مهليس دولة ده تكور قبته معلم كي وحيد مركي هو رئيس وبجت كدولة ده ميزانية الدولة اللي قدره مشاهر معلم ومركي هو رئيس لا يصوت أنتي دولك مركا وحي هيد $700 المعلم كلاسي ماشي أو $60 $400 لسيجر بجت كوالو قدره يرأي $700 كنت وحاسين ستيتسكا بقول له حالسي قبل كبنادر مرك معلمين تاس وحاسوا على هذا البروسيس كودي إيه واحد لما هذا هرجرينتو مرك معلم كوين اللي هرجريه wax looga carray macallimiintu waa malaha mushaar fiican malaha qof rabta inay barato ma jirto marka mushaarka in la xoojiyo taas la sameeyo tan kale waxa jiro kale in kuliyadaha waxbarashada in la xoojiyo oo focal education ka in qaybta waxbarashada teacher training in xoog la saaro hadda qorshe waxa ku jirto in laba college laga dhiso labadan state meesha u dhaxaysa Hirshabeelle iyo Galmudug dhexdooda in college waxbarasho laga dhiso labadan koob kale South West iyo Jubaland dhexdooda in laga dhiso teacher training college oo meeshaas macallimiin laga soo saaro xamarna Soomaali National University jaamacadda ummadda Soomaaliyeed in xoog la saaro iyo jaamacadaha kale oo soo saaray oo private ka arintaasna xoog inaan saarno si macallimiinta tayo loogu yeelo hadii kale waxbarashada tayo ma noqonayso aad iyo aad buu u mahadsan yahay Xasan Maxamed Cali ayuu kaasi ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo barnaamijka wardheere martii uu ahaa